xarunta wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta waxaa kulan ku yeeshay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ka kooban 8 wasaaradood oo kala ah wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta, wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta. kulankan ay isugu yimaadeen xarunta wasaaradda howlaha guud 8 wasaaradood oo ah guddida wasaaradaha ee qaranka ee u xil saaran dhaqan hirgelinta iyo fulinta siyaasadda qaran ee maamulka dhulka. siyaasaddan ay soo diyaarisay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeyntu ay ansixiyeen golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana uu wareegtay madaxweyne ku dhaqangeliyay 6 bishii Afraad 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. siyaasaddan oo ka turjumaysa qeexaysa isla markaana si cad u sheegaysa maamulka qaran ee siyaasadda dhulka. saynu la wada socono dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu ku noolahay inuu ku soconaa waxa weeyaan dhulka. waxyaabaha ugu badan ay bulshadeenu manfaacadsato ama ay kala iibsadaan ama ay ku tiirsan yihiin ama aynu ka shaqaynaana waxa weeyaan dhulka. si haddaba loo helo siyaasad qaran oo lagu maamulo dhulka waxa la diyaariyay siyaasaddan qaran kabacdi si ay u hirgasho siyaasaddani oo ay u noqoto mid qaranka wixii loo qoray ee loo diyaariyay u qabata. waxa lagama maarmaan noqotay inay hesho fulin isla markaana ay soo galaan oo ay ka mid noqdaan guud ahaan wasaaradaha qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo galaan arrimaha dhulku iyadoo ay hoggaan u tahay wasaaradda dhulka iyo howlaha guud. 8 wasiir saaka kulankan ku yeeshay wasaaradda howlaha guud kadib waxay isla qaateen qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeysa isku dubaridka farsamada iyo qorshaha fulinta siyaasadda qaran ee maamulka dhulka, in la dardargeliyo fulinta siyaasaddan qaran iyadoo lagu dardargelinayo in guddida wasiirada ay qusaysaa ay kulamo joogtaa iyo fadhiyo joogtaa ay ka yeeshaan si ay siyaasaddan u ful lahayd. si la isu waafajiyo fulinta siyaasaddan xeerarkii ka dheegmi doona iyo xeerarkii hore u jiray sidii loogu dabaqi lahaa xafiis ka howlgala oo isku soo dubarida oo ka shaqeeya hirgelintii fulinta siyaasaddan. siyaasadda qaran ee maamulka dhulku marka ay fusho ee la hirgeliyo waxay meesha ka saari doontaa khilaafaadkii, muranadii, isqabqabsigii iyo dhammaan dhibaatooyinkii muddada dheer laga soo dhaxlayay ee facyo facila la soo kala dhaxlayay ee ku saabsanaa arrimaha dhulka iyadoo ay jiraan xeerarkii dhulka ee qaarkood hore loo sameeyay qaarkoodna ay tibaaxi doonto ay tilmaamayso siyaasaddani oo ka mid yahay xeer 17. haddaba kulankan maanta ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee fulinta siyaasadda maamulka heer qaran waxay laga bilaabo maanta oo kulankani si rasmi ah u qabsoomay ay ka howlgeli doonaan oo ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo fulin lahaa siyaasadda qaran ee maamulka dhulka ee madaxweynuhuna uu dhaqangalkeeda soo saaray iyadoo oo ay soo magacaabayaan guddiyadan farsamo aan hore soo sheegay ee ka shaqayn doona qorshayaashii iyo qaababkii ay siyaasaddaasi ku hirgeli lahayd. waddan walba iyo dal walibana wuxuu leeyahay siyaasado uu ku jahaynayo ummaddiisa iyo xukuumaddiisa isla markaasina dal waliba wuxuu leeyahay xeerar u dhaxeeya bulshada iyo dowladda iyo waxa aynu leenahay ama aynu haysano ama aynu maamulayno inagoo markaa ka duulayna awaamiirta uu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ina farayo oo ay ka mid yihiin inay xeer nidaamiyayaal iyo siyaasado qaran oo lagu shaqeeyo oo lagu hirgeliyo howlaha horumarka qaranka la samayn doono. waxaan maanta kulankaasi loo qabtay sidii loo fulin lahaa siyaasadda qaran ee maamulka dhulka. waa mahadsantihiin.